deeqdan lacageed oo maanta wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Hirshabelle injineer Cabdikariin Cali Nuur oo qaybiyay qaar ka mid ah dadka ay saameysay fatahaadda webiga Shabeelle oo ka geysay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan la soo dhaafay ayaa waxaa laga soo ururiyay dugsiyada Quraanka Kariimka ee ku yaala magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka kuwaas oo ka damqaday dhibaatada fatahaadda oo geysatay walaalaha reer Beledweyne lacagtan oo gaaraysa $5,000 Mareykanka ayaa waxa wasiirku u qaybiyay deeqdaasi lacageed ilaa 100 qoys oo danyar ah isla markaana ka mid ah dadka saameynta adag ay ku reebtay fatahaadda webiga Shabeelle ee ku dhufatay magaalada waxaana qof walba wasiirku guddoonsiiyay lacag dhan $50 Mareykanka qaar ka mid ah dadkii danyarta ee wasiirku deeqdaasi lacageed oo u qaybiyay ayaa u mahad celiyay walaalaha soo dhibay deeqdaasi lacageed waxaana ay sheegeen inay baahi weyn u qabeen helitaanka deeq noocan oo kala wali rahmaka Axmed Ismaan waxaan u mahad celinayaa ummadda muslimiinta oo lacagtana siisay oo anaga barakac ah oo masquulo naga dumeen oo guriga naga dumeen $50 dadkiina si oo mahad celinayna khayr Allah si anagana kulli baan Allah naga dhig anigoo magacaygu yahay Cabdi Cali Arfax oo ku nool magaalada Beledweyne walaalaha lacagtan soo sadaqaystay waxaan ugu duceynaynaa in khayr Ilaahay ugu bedelo anagoo barakacayaasha ka barakacay magaalada Beledweyne ay maxaa qaaday waxaan qaatay lacag $50 baahi aad weyn aan qabno guriga naga dayaan walaalihii soo dhiibay iyo dadkii soo gaarsiin waxaan ugu mahad celinaynaa Ilaahay inuu khayr ugu bedelo gudoomiyaha dhalinyarada dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdullaahi Buraale oo ka hadlay goobta deeqdan lacageed loogu qaybinayo qoysaska danyarta ayaa sheegay in wasiirka ay ka garab siiyeen gaarsiinta ama soo xulista lacagtaasi dadka ugu liidan bulshada gaar ahaan kuwa ay saameysay fatahaadda webiga Shabeelle sidii loo gaarsiin lahaa asaga iyo gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Hiiraan waxaana uu mahad celiyay Maxamed Cabdullaahi Buraale walaalaha soo sadaqaystay deeqdaasi lacageed oo sheegay in maanta loo qaybiyay dadka ay saameysay fatahaadda webiga Shabeelle kuwoodii ugu liidanaa meeshan maanta waxaan ku qaybinay deeq lacageed ka timid macallimiinta iyo ardayda dugsiyada Minneapolis Minnesota runtii wasiir Cabdikariin ayaa maaragtay hawshan maadaama loo soo xil saartay wuxuu nala soo wadaagay anagoo ah dhalinyartii Hirshabelle iyo gobolkaba si aan maadaama aan magaaladii aan joogno dadkii mudnaan si loo helo runtii waa ku mahadsan yahay anagana waa kala shaqeynay in dad mudan meeshaan ay imaadaan oo xaaladda dadka dhex galno runtii boqolkaas qoys oo qofkiiba $50 la siiyo runtii wax badan ee noloshooda ay ka taraysaa kun jeer oo mahad celinaynaa walaalaha fatahaadda ka qayb qaatay ee waliba ardayda macallimiinta ee dadkooda maaragtay Soomaaliyeed ee dadkan Soomaaliyeed maaragtay soo xasuustay intaas kadib waxaan rabaa inaan ka faa'iideysanayo fursadan waxaan rabnaa in sidii loogu gurmaday dadkii dhibaatada gaartay loogu gurmado biyo xireenkii oo hadda bilow ah oo qorshihiisa socdo in maaragtay xoogga la saaro sidii la isku kaalmeeyay oo Soomaali inuu u kala harin gurmadkay u soo bisayna hadana loo kala harin biyo xireenkaas runtii anagu u mahad celinayo walaalaha Soomaaliland oo runtii lacagtii ugu horeysay ee biyo xireenkaas $400,000 ku deeqay runtii wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Hirshabelle Xildhibaan Cabdikariin Cali Nuur ayaa faahfaahin kooban ka bixiyay deeqdaasi lacageed ee loo soo wakiishay cidda soo dhiibtay cadadka lacageed iyo tirada qoysaska maanta loo qaybiyay deeqdaasi lacageed waxaana uu mahad celiyay walaalaha soo dhiibay deeqdaasi lacageed isagoona sheegay in dadka kuwii ugu liidanaa ay saameysay fatahaadda webiga Shabeelle maanta loo qaybiyay deeqda lacageed ee soo sadaqaysteen waxaana sidoo kale wasiirku uu baaq u diray dhammaan qurbajoogta u dhalatay gobolka Hiiraan oo ugu baaqay inay ka qayb qaataan mashruuca la in biyaha looga leexiyo magaalada Beledweyne waxa mahad iskale Allah subhanahu wa ta'ala waxaan halkan rabnaa inaan uga mahad celino dadkii walaalaha ahaa macallimiintii ardaydii waalidiintii soo sadaqaysatay lacagtii cadadeeda ahayd 5,000 oo maaragtay ku soo sadaqaysatay dadkii fatahaadaha ay saameeyeen oo maaragtay ku noolaa magaalada Beledweyne oo saakay anaga iyo maaragtay gudoomiyaha ururka dhalinyarada maaragtay Hirshabelle ay aad noogala shaqeeyeen barnaamijkaas oo saakay Ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu guuleeyay inaan maaragtay qaybino lacagtaas cadadeedu waxay ahayd lacag $5,000 ah waxaan gaarsiinay ilaa 100 qoys oo cala qoys la siiyay $50 waxaan aad noogala shaqeeyay oo noo caawiyay gudoomiyaha ururka dhalinyarada Hirshabelle waana uga mahad celinaynaa lacagahan waxa soo sadaqaystay waxay tahay waa dugsiyada ku yaala magaalada Minneapolis Minnesota waxa lacagtan laga soo aruuriyay waxay tahay waa dad maaragtay ardayda dugsiyada macallimiintii iyo waalidiintii waxaan ugu baaqaynaa dadkaas
إن إله سبحانه وتعالى بدل خير خب وبدله tan teeda kaletana ay caawimaadan inoo geysteen ay noqoto caawimaad maaragtay wanaagsan mid ka baxsanna inoo geysan doonaan maalmaha soo socda haddii ilaahay yidhaahdo waxaan kaloo ka codsanaynaa dugsiyada ku yaala reer Minneapolis way fara badan yihiin waxaan rabaa insha Allah tacaala inaan magacyadooda xuso dugsiyada maaragtay lacagahan soo sadaqaystay dugsiga ugu horeeya waxay tahay waa dugsiga la yiraahdo Iqra Academy dugsiga labaad waa Al Taqwa Center dugsiga saddexaad waa Madiina dugsi Al Jazeera Academy Skylight dugsi markas Ratil Amar Academy dugsi iyo markas Numaam dugsi dhammaantood waxay isku howleen inay dadka walaalaha ay maaragtay biyo baxadu saameysay ee ka qayb qaataan waxna ay gaarsiiyaan wayna ku mahadsan Allah subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa bedel khayr qab inuu ugu bedelo maaragtay intii karaankooda way ka geysteen waxaa leenahay dhammaan culimada reer Minneapolis culimada Soomaaliyeed waxaa leenahay wixii hadda dad la gaarsiin karo waa la gaarsiiyay hadda waxaa furan magaalada Beledweyne waxaan idinka codsanaynaa wixii kale hadda ka bacdi aan noo soo direysaan ama aad sameynaysaan inaad sameysaan maaragtay lacag aruurin u bedela in maaragtay barnaamijka dhisidda maaragtay biyo xireenka cusub oo dirtaan la dhagax dhigay biyo xireenkaas aad muhiim noogu ah waxaad macna sameynaa ma sanad kasta in loo soo gurmado biyo xireenkaas aad noogu muhiimsan waan idinka codsanaynaa waxaan aaminsanahay inaad ka qayb qaadan doontaan wabillahi tawfiiq wasalaam Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse telefishinka caalamiga Somali News Beledweyne